السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي وايدين سلامة ميل والبو أدونك دافع ديك جوجتان kusoo dhawow muuqaal cusub. waxaa idin wada body scrub jirka kuu qurxinayo sidoo kale madmadowga ka saarayo. scrubkan wuxuu ka caawinaa madmadowga sidoo kale wuxuu ka qayb qaadanaa inuu midkaada ka dhigo mid furan oo dhalaal leh. muuqaalka fiirso videoga bilow ilaa dhamaadka insha Allah taala. like-tan noo dhahdid hanaga hiloobin. meesha waxaan ku haystaa waa timir dhowr xabo ayaa biyaha la dhigay xoogo yar muddo 2 saac camal ayaa biyaha la dhigay. meesha kale waxaan ku haystaa waa bariis la shiiday iyo qasil laba nooc aan isticmaali doona insha Allah. sidoo kale waxaan meeshan ku haystaa waa huruud iyo cusbur iyo maxaan ku yiraahdaa huruud. sidoo kale waxaan meeshan ku haystaa waa vitamin E capsule dhowr xabo ayaan isticmaali doona insha Allah. kan hadda haysanin kan biyaha oo vitamin E oil hadda haysatid taas ku darsan kartaa insha Allah isticmaali kartaa. asxaabe waxaad ka helaysaa suuqyada huruuda iyo qasilka lagu gado meeshaas ayaad ka helaysaa insha Allah. sidoo kale wax meeshan ku haystaa waa black chocolate 4 qaado camal ay isticmaali doona insha Allah. ila socod wanaagsan. ugu dambeyn asxaabtaydan jecelahay waxaa meeshan ku haystaa waa Dove waa body shower. marka timirtaan shiidayna insha Allah. markaan shiido ka bacdi ayaan isku soo laabanaynaa. timirta waan soo shiiday asxaabtayda saa u jeedaan soft qurux badan ku soo baxay jilaac waxaan ku dhahay caadi ma ahan. baaquliga ayaan soo qaaday asxaabtayda saa u jeedaan gab ayaan ku soo siiyay timirti. meesha waxaan ku haystaa waa 1 koob oo buuxdo sokor 1 koob waaye iyo nus koob oo kafeega caadiga isticmaalaya. scrubkan wuxuu ka saaray madmadowga sidoo kale wuxuu ka qayb qaadanayaa inuu midabkaada oo ka dhigo mid furan oo dhalaal leh. wuxuu ka saaray kheyraadka maqaarka gasho maqaarkana wuxuu ka dhigayaa mid glowing oo qurux badan oo dhalaal leh. muuqaalka haday ku soo gaarto fadlan like subscribe iyo share noo dheh insha Allah. afaarihi kulli ayaa gab ku soo siiyay waa isku dhaxgelinaya si fiican. marka isku dhaxgeliyo ka bacdi waxa kale tan ku soo darsan doona waa rose water biyaha ubaxa xoogaa yar 3 qaado camal. waxa kale tan ku soo darsanay hadeertaanito waxa waaye waa vitamin E capsule-ka kii biyaha hadda haysatid waa isticmaali kartaa asxaabtayda. maasha Allah tabaraka dhowr xabo ayaan isticmaalayaa. marka ila socod wanaagsan asxaabtaydan jecelahay meel walba adduunka daaficda ka joogtaan. waxa kale tan ku soo darsanay hadeertaanito waxa waaye waa chocolate 3 qaado ayaan isticmaalayaa. waxa ugu dambeyn hadda waxaan ku soo darsanayaa waa body shower-ki xoogo yar ayaa isticmaalaya asxaabtayda saa u jeedaan kuma badinaay intaas la igu filan. maasha Allah tabaaraka raxmaan inaba caadi ma ahan waxaan ku dhahay soo broway. marka waa isku dhaxgelinaya si fiican waa isku qasaaya si fiican ayaa u qasaaya. scrubkan wuxuu ka caawinayaa jeex jirkaada ka saarto ama dildilaaca hadda leedahay. waxa ka qayb qaadanaysa maqaarkaaga inaa hal midab oo qurux badan kaaga dhigto. waan soo qasay si fiican asxaabtayda waan soo boogay saan qurux badan ku soo baxay. marka caagan ayaan ku shubanayaa 2 isbuuc ayaan isticmaali doona insha Allah hadduu Allah subhanahu wa ta'ala karla noqdo. maasha Allah tabaarakallah maqaarkaaga mid iftiin leh oo qurux badan ay kaaga dhigaysa soo broway asxaabay. jirkaaga markii hore wad qoynaysa alaabtan aad ku masaajeynaysa ilaa 10 daqiiqo kadib waxaad ku dhaqaysaa
maalin walbo waad isticmaali, daily ayaad isticmaalaysaa. wuxuu kaa qayb qaadanayaa jirkaada inuu qoyo soft kaaga dhigo, adigana haddii aad noqoto qof caajisan oo mar walbo isticmaalo waxyaabaha dabiiciga, natiijo la taaban karo waad ka gaaraysaa. gabdhaha aan jecleen inaa saalonada aadaan haddana garanaynin qaabka guriga aad ugu samaysan kartid pedicure iyo manicure, videogan idinka iska leh. koob biyo kulul baad soo qaadanaysaa, waxaad soo qaadanaysaa oo kaleeto shampoo yar iyo carbonate ama baking soda. waxaad kaleeto isticmaali kartaa cusbo iyo liin. cagaha gashanaysaa, xoogo baad ku daynaysaa ilaa 5 daqiiqo. 5 daqiiqo maxay ku saacidaysaa cagihii in ay jileecdo, dead skinka oo dhan. biyahaas kulul oo baking soda leh inay jilciyaan. kadib markay jilciyaan waxaad soo qaadanaysaa bahashan lugaha lagu xoqo, ciribta hoose baad ku xoqaysaa, dead skinki oo dhan basaas isku maxaan ku yiraahdaa soo qaadanaysaa. and then waxaad kaleeto soo qaadanaysaa brush ama scrub, waxaad ku scrub garaynaysaa cagihii si fiican. markii scrub fiican samaysatid cagihii baad qalajinaysaa. waxaad soo qaadanaysaa oo kaleeto nail cutter, cidiyaha iska guraysaa. waxaa kaleeto isticmaalaysaa moisturizer dabiiciga oo collagenka ku samaysan, ama cream caadi oo dabiiciga isticmaalaysid ayaa isticmaalaysaa. kadib markaas cidiyaha waxaad marsanaysaa haddii aad cilaan rabtid, haddii aad madoweyso rabtid, haddii aad rabtid nail polishing, waxaad aad jeceshahay baad marsanaysaa cidiyaha oo nadiifa. waxaan rajeynaa inaa ii fahanteen, inaad ka hesheen oo ka heli doontiin insha Allah biidhnillaahi alkariim. ani waxaan isticmaalay hadeertaanayto waxaa waaye scrubkii aan samaysanaya hadaabayto lugaha macal gacmaha kule ee marsanaya 5 daqiiqo ayaa la joogaya. waa scrub inaba caadi in lagama sheekeyn karo asxaabtayda, soo baroway. shan daqiiqo bal la joogay asxaabtayda. hadda waa iskaga dhaqaaya. waxaan isticmaalayaa waa biyo kulul, xoogo qadac waaye, zaaid kuleel ma ahan. waa iskaga dhaqaaya. waxaan kusoo darsaday xoogo yar oo shampooga, marka si fiican aan iskaga dhaqaaya scrubki. marka asxaabtaydan jeclahay khayr baa idin rajeynaya meel walbo aad joogtaan. wax walbo saasaan jeclahay in idin la socodsiiyo, idinkana aad iyo aad humaasantihiin. dhiirigelintiina, commentiyaashana qurux badan, like-tiina, subscribe-kiina. walaalaha kale oo weli subscribe channel ka dhigin nagu soo beer, welcome, qalbi furan kusoo dhawow. walaalaha nagala joogi jirtayna familkeeda ka mid tihiin, madaxa ii saarantihiin dhammaantiin. caafimaad ku noolaada meel walbo aad joogtaan. ka hadal ma lahan, soo baroway asxaabtayda insha Allah. haddii aad sidan u samaysatiin waxaa hubaala ina faa'iido badan aad ka heli doontiin biidhnillaahi alkariim. wax fiican oo dabiici ah, wax aan chemical loo dhaweynin, effective jirkaada kaaga geynaynin. intaan yar gurigaaga ku samayso wax badan ama wax weyn la raadinaya ma lahan insha Allah. please asxaabta qiimaha iyo qaayaha iyo qadarin iga mudan, waxaan ka codsanayaa in aad videogan like-ta igu dhiirigeliseen. videogan waqti badan aan soo geliyay, adigana waxaad igu caawisaan kaliya in like-ta ii saartiin. channelka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe ii saartiin. sidoo kale waxaad idin ka codsanayaa inaad muuqaalka dhamaysatid bilow ilaa dhammaadka. waxaan rajeynaa inaad ka heli doontiin insha Allah. haddii aad meeshan kusoo gaarteen videogan quruxda badan, aad ba u mahadsantihiin. allahuma baarik baa idin leeyahay. ilaa aan waqti kale ku kulmi doono hadduu Allah subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. khayr badan ayaan idin rajeynaa meel walbo aad joogtaan. waa walaashin farxiyo idin leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.